kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhaxantiiba meel walba naga daawanaysaan iyo si waliba noo daawanaysaan halka aad naga daawanaysaan waa barteena YouTube-ka aan ku leenahay ee Mandera Got Talent oo alaab ugu barteen inaan idin soo tabino ama aan idin soo gudbino riwaayadooyin iyo waxyaabo aad u xiiso badan maanta waxaad ku soo dhawaataan waraysi aan la yeelanayno walaalkeen Cabdiqani ku soo dhawow waa mahadsantahay horta kaga mahadcelina sida qiimaha iyo wanaagga leh marta ugu soo dhaweysay aad iyo aad waan ku dhawahay sidoo kale Cabdiqani aniga aad baan u faraxsanahay inaan maanta aan kula kulmo oo waraysi ku yeesho Cabdiqani waxa tahay wiil dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo soo ku nool deegaanka Mandera ama ismaamulka Mandera waxaan halkaan maanta aan kuga casuunay inaan wax yar ka weydiino arrimo ku saabsan jacaylka bal haddii aan su'aasha ugu horeeyo aan ku weydiiyo ma jeclaan lahayd in daawo loo helo jacaylka maxaase adiga aad ugu dhigi lahayd jacaylka daawo walahi waa su'aal aad u wanaagsan horta jacaylka maaragta hooygo haddii si loo fiirina waa isku yaro fiican maahay haddii si loo fiirina ma isku yaro fiicnin haddii aan ahaan aan ka dhigta su-aasha aad weydiisay oo ahayd ma jeclaan lahayd in loo helo maaragta daawo jacaylka aada weyn waa jeclaan lahay waayo sanadadan dambe maaragta inaad aragtay in kale ma sheegi karaayo balse magaalada haddan aan ku sugannahay misna caalamka waan dhahday waxaa kusoo kordhahay maaragta inay dad ilmo isdilayaan oo jacayl sababtiisa isu dilayaan taana waxaa keene jacaylka daawo loo la-yahay awgeed inta badanaan waxaa lagu saleeyaa jacaylka daawadiisa inay tahay qofka uu jecel yahay inuu helo qofka hadduu qofku jecel uu hela dabcan daawadiisa waa helay misna maaragta waa ka bogsan karaa ani waxaan is leeyahay haddii maaragta jacayl ay tahay maasha allah waxaan dhihi lahaa in loo helo daawo aaday wanaagsan tahay daawo in loo hela haddii qof jacayl haya oo qof jacayl soo daashay adiga maxaa soo dhigi lahayd daawo haddii lagu yiraahdo qof maaragta jacayl maaragta awgii la xanuunsan daawadiisa u raadi waxaan daawo ugu dhigi lahay waayo daawo kale uma furno jid kale uma furno waxaan daawadiisa inuu qofku jecel yahay oo maaragta uu helo maaragta nolol uu maaragta la dhisto taa un bay noqon kartaa daawadiisa asleeyahay wax kaloo sabab daawo kale oo hayo waxaan leedahay waa qofkaasi inuu helo qofkii kale oo macnaha jacayl ku hayo waa tahay waa jawaab aad u fiican su-aasha xigta Cabdiqaniyow maxaa sababa in qofka kale uu ilmeeyo haddii uu ka diido jacaylkiisa wallahi su-aasha tiiba tan kale kasii kulul haddii aan isku dayo qofka maaragta ma arkin waana arkay mana arkin waana arkay su-aasha macnaha ujeedadeyda fahma qof jacayl la ilmeynana waan arkay qof maaragta sidii dhagaxina maaragta waxba ay galaynin waan arkay dadka ayagaba kala duwan balse haddii aan maaragta su-aasha aad weydiisay aan sii dhadhac qof jacayl la ilmey maxay tiri su-aasha waa yara daba martay wax yar maxaa sababa in qofka kale uu ilmeeyo jacayl daradii taa waxaas dhihi karaa waa dareen maaragta qofkaas maaragta baaxad weyn oo qofkaas helay macnaha waa jacayl aad u weyn waayo qofkan haddii dareen dhab ah misna ay haynin jacayl maaragta dhab ah ma ilmeyn lahayn waayo qofkan kalena ma dareensano ilaa baaxad uu maaragta la egyahay dareenka uu hayo qofkan kale taasaa kalifaysa marka qofkan waxaa laga yaabaa inuu u ooyo cid darteed waayo qof maaragta hadda maanta aan kasoo qaado for example waxaa tahay daktar waxaan ku imaada waxaan ku yidhi niyow saana jirto meeshaan ay laxwane inta ay laxwane haddii daktarkii ka waran uu igu dhahay ugu jejeeso taas waxay noqonaya ninkan maaragta moralka ku dhimana inuu hataa gudaha ku ooyo waa macquul waa just adoo daktar u tagtay u sheegatay xanuunkaada kadibna daktarku waxba kuu qaban waayo taa ayay lamid tahay aan isleeyahay waa ta aad u mahadsan tahay intaan u gudbin su-aasha saddexaad haddii aan ku dhexgeliyo su-aal yaro kaftan ah adiga weliga jacayl daraadii ma la ilmaysa wallahi jacayl daraadii weli lamaan ilmeynin maan arkin jacayl baaxadaas dana maaragta aan la ilmeeyo balse dareen jacayl weli wuu igu soo dhacay maalin weli heer aan la ilmeeyo maaragta ma gaaray waa tahay waxaa is leedahay waxaa waaye waa weli waxbaa ku laaban macnaha ma dhihi karaa marka dadka qalbiga adag baa ku jirtaa may dadka qalbiga adag kuma jiri balse waxaan is leeyahay ilaa heerka aad la ilmeyn lahayd weli ma gaaray ilaa heerkii la ilmeyn lahayd ma gaaray Cabdiqaniyow ragga laba sifa loo kala qaadaa sifo waxaa macnaha lagu sifeeyaa qaar waxaa lagu sifeeyaa in ragga macnaha dhanka naagaha u jarjeero oo naagaha jacaylka macnaha jacayl aad u daran haya naagaha u daba dhaqa qaarna hadee waxaa lagu la yidhahdaa ayagana macnaha rag oo haddii la ku roon yahay rag macnaha adag
oo macnaha haweenka iyo dhanka dumarka macnaha dhankaasi aan aad ugu jirtilacsan bal adiga qaybtee raacsan tahay taas waa su-aal maaragtay iga da-weyn waayo qaybta hadda aan raacsanahay ma dhihi kara qaybtaas aan raacsanahay waayo qofka asaga iskama warrami kara in laga warramo leemahan haddii aan su-aashaas maaragta u gudagalo waxaa jiraan waa runta sidaa ka dhawaajisay qofka waxaa keeni karaa maaragta inuu maaragta dumarka uu u badnaado asaga ayaa iska heli kara waayo qofkan haddii qofkii meel maraba uu hamigiisa raaco misna qoftaas qof hebla intay martay qof hebla intaa martay waxaa ku maaragta ku tagaya maaragta xakameyntii aad naftaada xakameyn lahayd ayaa meesha ka baxayso waayo qofkii socdo dhaqaaqaba waxaad leedahay tan anay ugu fiicnaan lahayd taa waxaa dhimanaya marka moraalkii misna maaragta adi heerkii aad ka taagneed aragnimada waayo tii socotaba haddii taada noqoto hadhow waxaa kaa dhumi kara maaragta dooqii inta badanaan hadda waan aragnaa dad uu dooqi ka dhumay qofku dhahaya taa inaad aragto macquul saaxiibo dooqi ayaga lumay tii socotaba maaragta dareena u qaada taana da waxaaway maaragta u ah kii kale u ah qofkii tii dhaqaaqdaba haduu dhaniyo tan anay ugu fiicnaan leh taas waxaa qadri ka bixi maaragta xakameyntii aan naftaada xakameyn lahayd oo dooqaada maaragta waxa aad rabto qofta aad rabta aad dooqan lahayd meesha ka baxay waa tahay weli waxaan kaga jirnaa bartamaha barnaamijka waraysiga aan la yeelan walaalkeen cabdiqani barnaamijka waa weli faaroona fari kama qodna bal haddii aan u gudba su-aasha afraad waxaan ogsoonahay dhibaatooyin lagala dhaxla jacaylka mala kulantay dhibaato jacaylka ah wallaahi dhibaatooyin fara badan oo lasoo koobi karin oo maaragta hadda ka hor ahayd laakiin saacan aan taagnin way jirtaa balse haddii maaragta aan u gudagala maaragta su-aashaada ahayd jacaylka dhibaatooyinka lagala kulmo waa maxay wallaahi jacaylka dhibaatooyin fara badan ayaa lagala kulmaa inta badana waxaad arkay qof 5 sano 6 sano aan idhaahde xiriir soo sameynayo maaragta waqtigiisa ku luminayay oo xiriir qof kale la sheekeysanaya aad arkaysaa misna calafkii meesha u maaragta inta badan anaka ma aaminsanin calafka iyo maaragta jacayl inuu calafka weyn yahay qofaa arkay 10 sano 5 sano 6 sano ayuu maaragta xiriir lahaa adii ugu dambeyn qofkii waa laga kora qaada qof lacag laha imaada waa laga guursanaa waayo taana calafka waa haddii aan idhaahdo saameyn maaragta mise xanuun intee la-eg uu leeyahay xanuun aada u fara badan leeyahay waayo wuxuuna imaadaa xanuunka badanaa jacaylka markuu labada qof ay isguursadaan maaragta ay qalgalaan kadib ayuu imaadaa xanuunka badana waayo waxaa meesha ka dhalanaya maaragta haddii haddaad isu tagteen meesha ilmaha dhalan karo ilmihii markay dhashaan kadib waxaa imaadaysa maaragta qofka kale inaad qof kale u sabri waayo waayo meesha waxaa imaaday ilmaa imaaday waxaa laga rabaa caruurtii maaragta biilkoodii waxbaa laga rabaa badana isku dhaca maaragta jacaylka qalaafaha meesha ugu badan yahay dhankaas waa isdhihi karaa xanuunka fara badan meesha dadka kala soo dariso waxaad arkay inta badana laba qof oo maaragta jacaylkooda heer sare u ahaa gadaalna uu jacaylkooda ku xumaanayo waayo waxaa sababay isfahan waa guriga ka dhex dhacay waayo labada qof intay kala fog yihiin ma sheegi karaan wixii ka dhex dhacay waa tahay cabdiqaniyow dad waxaa jira jacaylka dhibaatooyin aad u fara badan kasoo gaaraan sida iyago isdila qaarkood ama dalab iska tuura ama isdaldala dadka noocaas maxaa ku sifayn lahayd ama wiil ha ahaado ama gabar ha ahaadeen ama dad oo macnaha aqligooda macnaha aan aqli weyn aan lahayn mise waa dad macnaha jacaylka iyo macnaha dareenka baa ka tambedi baa isleedahay adigu bal dad nooca maxaa ku sifayn lahayd su-aashaas hadii waa yar ka yiraahdo yar aan saaxiibo nahay maaragta haween dhexe haween dhaweed arrimo noocaas aan ka wada sheekeysaninahay wuxuu yiri niyow jacaylkan maaragta maraan kusoo qoray statuskayga aan eri jacayl aan noocaas kusoo qoray markaas wuxuu igu yiri niyow ereyada maaragta makabantoodiina ma iska dhaaftiin camal jacaylkan dhibaatooyin fara badan leh iyo aad ka gadaysiin bulshada banaanka maka martiin camal markaas su-aalo dhowr si weydiiyey wuxuu igu yiri niyow jacaylkan waa igu soo dhacay jacaylkii igu soo dhacayna wuxuu ahaa jacayl maaragta hataa heer aan cuntada cuni waaye gaarsiiyey anigoon xanuun ihaynina isbitaal maaragta ii diray daktarka markaan u tagay wuxuu leeyahay niyo xanuunka ma haya ku laaba maaragta xaafadaada macnaha heer waxaa wuxuu gaaray in macnaha cudur aan lahayn daawo uu ku dhaco markaan isbitaal tagay wuxuu leeyahay niyo xaafada laysoo celina daawii kaniile laysoo siinaa sidii barti le kasii wadana cuntana ma cunaay gabadhaasna daqiiqad inaan la hadla mahana wax kale i suurto waa malahan haddii aan hadalkeeda waa dunida markeeda ay ugu dambeysa camal iska dhadhacsay weli marka waxaa dhacdikii hadda sheekadana kusoo wadaa waxaa dhacdikii marka intii sheekada saas ay ahayd waxaa laga soo wareegay 9 bilood 8 bilood aan soo saaway
aan waxba cunin isbitaalna aan ku socdo bil walba isbitaal aan tagay dabadeed yar aan la kulmay ugu yeeri yarkii aan la kulmay ayaa wuxuu ugu yeeray niyo sheekadaas waa jirtaa dad badan ay qabsatay ayaa jiraan warka waa sheekada ugu qosolka badneed waxaa jira uli shaytaan ayaa weheliyay jacaylka la sheegay cunaa wehelkiisa waa shaytaan ayaa weheliyay jacaylka la sheegay waayo yarkii wuxuu leeyahay wuxuu ugu dhaykay yarka kala talaan kusiin taladaas haddii aad samayso wax jacaylkan baaxadda weyn misna maaragta gabadhaasaa ka daba cararay halkaan ay kusoo idlaan doontaa yarkii wuxuu isiiyu leeyahay 10 cisho inaan masaajidka galo imaamka gadaashiisa aan ku tukado 10kaas cisho aan salaad 5 salaadba aan ku tukado imaamka inuu masaajidka galo waa talaad fiican telefoonkaygana aan damiyo ilaa iyo 5 maaragta isbuuc aan damiyo telefoonkayga yarkii markaan sameey uu yiri dhowr maalmood adee 3 maalin 4 maalin camal markaan sameeyey wuxuu yiri wixii ahay dhan meel ay ka baxeen ay noqon waay aniga waxaan arkay wiil cuntadayda sidii maaragta haddii nuskiilo bariis la karay nuskiilo bariiska dabka sinaa wixii ahaa waa iga guura marka sin haddii loo fiiriyo sheekada markaan dhageystay waxaan is iri jacaylka ama maaragta ku maran yahay shaytaan waayo dadkan hadda marka dabaqya isku soo tuurayaan waxaan dhihi lahaa dhibaatooyin isu geysanayaan sina waa noqon kartaa jacayl dhab ah qofkan inuu haayo haddaba maaragta jacaylka qofkii aad ku haay aad hantin waysana waa laga yaabaa in maaragta aad xoogo aad dabaqdo waa tahay weli barnaamijka faraya ku qodan waa laakiin waxaan kusii saqaynaa guntii gabagabadiisa waxaa jira dad dardarayaal ama fidno ka kiciyo dadka isjecel oo si aad isu jecel bal dadkaas maxaa ugu baaqi lahayd wallahi hore waxaa loo yiri jacayl maaragta saddexeey mu waay ma ahayd maamaada maagiya qabdada bilaa mu waaynahay jacayl haddii aragtid daacad ah oo misna dhisan guri dhisan ba aan kasoo qaada for example mu waaynahay qof maaragta usoo dhakado maaragta inuu burburi isku daya marka waxaan dhihi lahaa horta jacaylkaas hadduu daacad yahay si doonto la iskugu day in la burburi kii burburi lahayba maahan waayo haddii labada qof ay kalsooni maaragta ay ka dhexayso maaragta jacayl laba ma burburaayo balse waxaan dhihi lahaa intaad maaragta ku maqan tahay guridadeed dudumi kaadana qofki u maqan adun baa sheegi karaayo iska daan dhihi lahaa qofkii maaragta isku daya maanta inuu burburi macnaha gudsina daaqadan baad leedahay su-aasha ugu dambeysa guddiga gobada barnaamijka aan soo garnay su-aasha ugu dambeysa maxaad ugu baaqi lahayd dadka jacaylka la daashaday oo jacaylka daashaday maxaad ugu baaqi lahayd labadaas jecel lamaana jecel oo weli aan isguursan laakiin jacayl dhaba cusub qaba adiga ka faaidaysanaya fursadan wallahi waxaan dhihi lahaa maaragta xiriir badan oo maaragta waqti dheer qaato dadku waxay dhahaan waxaa ku jirta faa-iido isfahan labadan qof isfahmaa taabeen waa qalada la aaminsan yahay xiriirka wuxuu maaragta dhab noqdaa misda u xididaystaa labada qof markay aqal maaragta guri galaan maaragta ay hoy wadaagaan waxaan dhihi lahaa haddii aad ku raagtay jacaylka maaragta sabano badan aada soo waday iska aqalgal iska guurso si aad u aragta jacaylka murihiisa aada u murugarato waa tahay daawadayaal intaasi waxaa inooga dhan barnaamij gaar ah ama waraysi gaar ah aan la yeelanaynay cabdiqani oo kamid ah dhalinyarada ismaamulka Mandera cidda uu barnaamijkeena seega ama waraysigeena seega waxay fariin inoogu reebi karaan barta commentka barnaamijka waxaa ila socodsiinayay anigoo ah Kamaaluddin Axmed Jelle oo ka tirsan wariyaasha Mandera Got Talent dhanka farsamada iyo kaameradana waxaa naga caawinayay Cabdixakiim Cadaala intaan barnaamijkaani barnaamij lamid ah aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo amaano Allah